macalin Kayse Maxamed Faarax oo ka mid ah culimada waaweyn ee degmada Garadag barana ka madrasada dhigtaan in ka badan 100 caruur ah oo isugu jira inamo iyo hablaba. Madrasadan ayaa roobabkii daayay soo gaarsiiyeen waxyeello weyn. Haddaba macalin Kayse ayaa bulshada islaamka ugu baaqay inay ka soo qayb qaataan dib u dhiska madrasadaasi. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له إن شاء الله هلكن هرتاغنا هاي وحوي ملعامدي ku qabsanayd mustaqaamaca degmada Garadag oo bariyahanba waxweeyaan aad iyo aad u dayacnayd halkan waxweeyaan arday fara badan xoog ay u dhigan jirto ay ka baxday habla iyo dumar hablayena maba leh dabadeetona ay hadartona ay dibadda joogaan oo malcaamadu ay aad u dayacan tahay dadka muxsiniinta ah waxaan ku codsanaynaa inay wax weeyaan soo dayactiraan oo maalkooda waxa ugu fiican meel la geliyo meelaha madaarista quraanka lagu dhigo iyo masaajidada ayaa ugu khayr badan waana sadaqatul jaariya oo qofku waxay u soconaysaa isagoo uu qabriga ku jiro ayay u soconaysaa marka dadka muslimiinta ee muxsiniinta qof kasta ayaan ka codsanaynaa inuu wax weeyaan ka qayb qaato waayo malcaamadu waxay u baahan tahay aragtaan qaybta sawirada ayaa ku aragtaan qaybteedii hore ayaa dunsan barandadii ayaa dunsan xagga hore ee sabada way dunsan tahay waa bilaa siliig maxay ahayd xoog bay u dayacan tahay siliig ayay u baahan tahay suuliyadeedii oo dhan insha Allah way wada afla yihiin oo dadka ayaa ku saxaroodanayo waa saxad daro caruurtina halka waxay ka qaadaysaa marka caafimaad xumo ayaa ka imanaysa iyo saxad daro waayo wax weey suuliyadaasna waxay u baahan yihiin in albaaba lagu xiro oo dadka geliya laga xiro way albaaba leeyihiin marka insha Allah dadka muslimiinta waxaan ka codsanaynaa khayr Allah siiyo miisaankooda xasanaadka Ilaahay ha u saaro qof kasta oo bixiyo wax ku darsada waa madrasad quraanka kariimka ayaa lagu dhigtaa qofkii wax gashada isagoo qabriga ku jira ugu soconaysa waa sadaqatul jaariya wixii la gashadaa marka dadka muslimiinta meel kasta joogaan dal iyo dibadba waxaan ka codsanaynaa inay soo caawiyaan malcaamada dhismaheeda iyo barnaamijkeeda ka qayb qaataan wassalaamu calaykum Abdi Salaad Jamac Star TV degmada Garadag.